beerahayna miinaa la geli ma beentaya yaa geli Jubbaland agilis beertii aabaheed ay lagu soo koriyay dhaxdeedii ayaa dhibkan shalay ku gaari waxaan joognaa BB1 maamo shalay gurigeed ka baxdi oo beereed aadi oo ilmeed qudaar u raasidisi oo wixii magaalada ay ku joogleed ka raasatay ayaa markay soo galbatay explosive ku istaagtay way dhimatay waa qaar ka mid ah shacabka xaafadda BB1 ee dhacda saddexagalka Kenya Soomaaliya iyo Itoobiya oo ka hadlay aaska Allah u naxariistay hooyo Faaduma Nuur Maxamed Xuseen oo xalay tufiidkii xaafadda BB1 ugu geeriyootay walxa qarxa ayadoo dhaawac culus uu ka soo gaaray gabadheeda oo 12 jir oo haatan lagu dibiibayo isbitaalka Mandera Referral qoyskan oo ka soo laabtay beeraha kuna sii jeeday gurigooda ayaa la sheegay in xilli ay wateen gaari dameer ay waxyeelo ka soo gaareen haraadiga hub loogu tagay agagaarka beeraha BB1 oo dhawaan laga kiciyay ciidamada maamulka Jubbaland munaasabada aaska oo lagu qabtay qabuuro ku yaala xaafadda BB1 ayaa waxaa ka soo qayb galay shacabka magaalada Mandera madax odayaal iyo qaybaha kale ee bulshada oo uu ka mid ahaa MCA-ga Township Mudane Faisal Cabdinuur qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa la hadlay warbaahinta ayagoo walaac ka muujiyay haraadiga hubka ay ka tageen ciidankan oo yaala BB1 waxayna ku baaqeen in laga nadiifiyo halkan sidoo kale waxay ku baaqeen in si degdeg ah ciidamadan loogu saaro xaafadda ayagoo sheegay in dhibaatooyin shacabka ay ku soo food leeyihiin haddii aan laga hortagin group H1 way group beertaydi ma tagi kara maanta hadda meeshan ku taaganahay qadar uma lihi meeshii beertaada gabadhaanay marxuumidan maanta hadda la duugi yahay dhibku shalay ku gaari waxa la dhahaa group A1 jidkaas ayaa dhaxmaray jidka laba dhinac ka kala jiraan ayadoo sidaas ay tahay beertii aabaheed ay lagu soo koriyay dhaxdeedii ayaa dhibkan shalay ku gaari yaanyadii dhaxdeeda looga dabay mar hadduu nimanka ay baarjiif naga jiraan meesha aniga aan joognin hadda beerihii iskiimkii garboqol BB1 as yahay marka dhulkan kulli waa dhulkii ay difaac jalfisa iskaga dhigeen way annaka iyo xoolahayna waa gadanahay marka dawladda Kenya national government waxaan ka codsanaa bifadlikum inay dadkan waaqaal dawladda Kenya maadaama ayna soo duldejisay maleeshiyad oo Jubbaland ayna soo duldejisay waxaan rabi lahayn horta kwanza almuhiim waxa waaye beerihii xoolihii horta intaan la geynin oo beerihii ay naga baaraan oo meenooyinkan iyo waxaan shalay gabadhaasay marxuumadda dishi ay naga baaraan oo si fiican nooga soo jagareeyaan haddii ciidan la dhex degaana ciidan garanaynaa beerihii waaga beri salaadii BB1 maamooyinka ciyaalka wixii dhammaan duqooshinka dhammaala matereesa intaan soo qaadan xoolaha soo wadan ayaan dawladda horteeda soo dhex degaynaa annaga waa guuraynaa Kenya hadaata waa guuraynaa hadii kale aheena si degdeg ha nooga qaado kuwan magacaygu waxa la Qaasim Cabdi Cali dawladda Kenya waxay loo soo dejisay BB1 niman Malaysia oo dhulkooda soo gubay qaxooti ma noqon karna anaga waxaan la liistaan meeshan MCA Faisal Cabdinuur kale weytaan dad noo imaad weysay kura meesha u soo doonadeed adaa taqaana gaafana adigana adaa taqaana meeshan nimankan maanta anaga inaan u tagno oo la isku dhamaad ama anaga dhamaanayn gabadhan siday u dhimatay inaan u dhimanaa diyaar u nahay beeri waxaana noola geli gabdhaha beeraha wadaadayaan beeraha ku wada dhamaanayn beeriin waxaana wadayeen tafadhali sana waxaan dawladda Kenya aan ka codsanaynaa nimankan inay naga soo bixiyaan
aniga hooyaday biibanayda 3 sano jirta imaaday haddana waayeel way joogtaa anigana 50 jiraan ahay waligay qarax maan arkin nin qori wadan Kenya ahaan waligay ma arkin wadankan ku dhashan ka cararahaya wadankan u dhashan ciidan u dhashan ka cararahaya niman garanaynaan ugu cararahaya tafadaali saana bandiirada Kenya dawladayna madaxdayna waxaan ka codsanaa dadkaan aan garanayn oo awlaadayna aan fiigayn anagana aan fiigayn inayna dhaafisaan ka codsanaynaa بيبون أنا اسمعلنا الله يسدجياه أنت اللي مت الله ونحرست أنت نولنا نبدي عافمات الله سي آمين تهذي كلا وعن الله يا أنا قريب بيبون أنا ماشان بيرهاين مانن والبا لنا نمن أنا قرنين أياكسو دقاي مركاي هاللاين وإذا علاك هالله وحيدهن عن دقنا هاي دولت كتلامين ماشان متلامين مسوا كيا بيبوان كينيا بيبوانا جوغنا أنا جماعة ماشان تلامين وعلماء تلامين والصومالي وعي كل إنت يكسو تجن بري برتن كودا يتجن علمي ما نقول بمدا قوسنا بمبدا بيرت الأحداث أيود دقيا علمها هاي نقطرة يكجران مال كستوع بانو يلا عد صوفيرين ملء على إلهن نبكى سانا هايستا إنا لله وإنا إليه راجعون الله يسدجي إنا لله وإنا إليه راجعون geerin naxtin leh oo lala yaabaa ka dhacday Biibwan aan ka tacsiyeynayna koow dhammaan reer Mandera iyo ummadda muslimka iyo adduunka dhan waxaan u sheegaynaa dawladda Kenya inay soo dejisay Biibwan Malaysians from Jubaland ay noo keentay markii ugu horreysay beerahayna la deji la celiyay Soomaali loo celi dagaal lagu soo qaaday lagu soo dhex celi mar labaad iskuulkayna la deji iskuulkayna hataa qatar ah ilmo ma gali karaan ma miinaysan yahay ma naqaana ma beentaya beerahayna miinaa la gili ma beentaya yaa gili Jubaland agilis miinaa la giliyey maamaa noogu dhimatay xali aaskeedan joognaa faadama barrey aa dhimatay allah u naxariista maamo kulayl badan oo aad qaali nooga ah oo nin rag hataa ka qiimo badana naga dhimatay waxaa dili Kenya dishi hadday ciidamada Jubaland halkan imaani lahayn faadima barrey waqtigeeda hagala ma dhimin lahayn Kenya adishay dawladda Kenya u haysanaa number 1 madaxweynaha Kenya waxaan u sheegaynaa dawladdaanaas soo dhex dhigtay Jubaland haddii aad naga qaadi weysi waxaan codsi u dirsanaynaa dawladda Soomaaliya ha naga qaado ciidankan ha soo galaan cawada we shall tell the government of Somalia let them come and defend us the Kenya government was unable to defend us we don't know why our people are dying day and night we don't know ma naqaana annaga dadkayna waxay ku dhimanayaan dawladda Kenya wayna difaaci weyday waan u sheegnay 10 jeer aan u sheegnay mar ma aha laba ma aha dadkayna heer waxay marayaan qaraxay ku dhintaan yaa sababay dawladda Kenya sabab ah dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah cawada ay ku baranayeen nimankaas meesha noogala qaada hanala dhaafi anaga qaada dawladda Soomaaliya way qaadi weysi Kenya we don't know why dadkayna maxay u dhimanayaan anagala qaada waxaan joognaa Biibwan waxaan iskugu imaanay qabri ku yaala Biibwan waxaana duugaynaa maama Faaduma Barrey maama shalay gurigeed ka baxdi oo beereed aadi oo ilmeed qudaar u raasidisi oo wixii magaalada ay ku joogleed ka raasatay ayaa markay soo galbatay explosive ku istaagtay way dhimatay dad badan waxay sheegeen waxay wada ku qaraxay waxay ku istaagtay ayaa ku qaraxay meesha waxay ku waysay lugti isbitaalka Lolordi waxay ku dhimatay isbitaalka Mandera tafaruqulka ku dhamaatay maamad Allah u naxariista maamadu way tagtay waxaan u maleynaa dhimashada maamadu waxaan istaajin kar malaha laakiin waxay noqonay badbaadista reer Biibwan insha Allah geed dheer iyo geed yar waan u fuulaynaa insha Allah markuu ugu horreysay horta nimankii waan bixinay waa la soo jibiyay haddana waa la soo celiyay mana ka saacanayn insha Allah waan bixinaynaa meel looga carara ma laha
dowladda Kenya waa inay ka warhaysa ummadeeda waxba ma kali ay maadane marka ummadeeda ay maadane insha Allah maamadu way dhimatay laakiin waxaan ka ballan qaadi muddo yar dhacdeed nimankan inay kacaan maligayba taas waa inga ballan qaadi waan soo noqonaynaa reer Bibwan ahaan had maanta tacsiya noo yeesh reer Bibwan tacsiya hadda noo taal tacsiid markaan dhammaysan waa isu soo noqonaynaa waa tashanaynaa dadweyne tashti waxay noqon karin malaha waan soo qayli markaan qaylinayo oo hadlay dad qaar kood waxay maleynayaan in waa inuu hadlay waxaan u hadlay inay waxaan soo socdaan aan garanay maanta waxaan ii sheegi tan hadda laga hortag waay tuutan ka weyn inay noo imaan doon intay noo imaanin waan fadhiisanaynaa waan tashanaynaa wixii taladaas aynu tustaan ku dhaqaaqaynaa insha Allah Ibrahim Nuur Cabdiraxmaan warbaahinta Daawa magaalada Mandera